إنجنير عباس وحن بليف جريسنا هاي إنه يهينن دليرة وآد وناكسن أقولنا له إن شاء الله هنا ولكن نكون وكامين دون إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أولا وحن ومعدنقيا لمان كسوق بكلياش الشركة رجع دمربا وحن ومعدنقيا سيد شرفت لهاي أسوأ أجيبين إن كسوق بكان حفلة وحن سكارة وسلامية مدحذا إن كلا جوكت دولة بونتلاند oo horeeyo maxamed abdirasaaq buure oo ah agaasimaha daryaalka bulshada oo inuu ka yimi Yitebori si uu xafladda quruxda badan uga soo qayb galo goobjoogna uga noqdo galabtay dhamaystirka iyo calaamasaarka guddiga fulinta ururka Puntland Diaspora Forum iyo magacaabida guddiga marjaca ama guddiga odayaasha oo uu yahay gudoomiye maxamed qaalib saciid. waxaan wax yar ka waranayaa waxa aan idin qaban doono inta aan xilka hayo iyadoo kooban insha Allah. awalan waxaan rabaa inaan wax ka qabto sidii ay jaaliyaddu u heli lahayd meel multiplace ah ay isku dhex galaan ay dhaqankooda ku ilaashadaan diintooda ku ilaashadaan ku sheekaystaan xilliyada firaaqada leh ay carruurtu iyo dumarku ay yimaadaan taasaa waxay ii tahay priority-ga koowaad. tan labaad waxaan isku dayayaa inaanu qabanno seminaaro dadka lagu baraarujinayo inay ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada Norway maadaama aynu halkan degannahay sida dhalinyaradana loogu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka Norway ee aynu joogno. waxaan wax ku bartay dalka Norway hadda aan iraado 9 sano ugu dambeysay ilaa 2007 wixii ka dambeeyay waxaan ka shaqeynayay xafiis waxbarasho oo Oslo ku yaal. dad badan oo halkan jooga wajiyadooda igu cusba waan is wada naqaanaa marka waxaan aniga oo ka qaadiyay iyo khibradeyda shaqo ee Norway iyo tayada waxbarasho waxaan ku rajo weynahay inaan ka soo bixi doono aniga iyo tiimkayguba waajibaadka culus ee aan saaray haddana waxaan u mahad celinayaa marka ugu horeysa dhalinyaradii soo abaabushay shirkan aynu halkan isugu wada nimi xafladan quruxda badan iyo xaaladan aynu ku sugannahay noo soo agaasimay rag iyo dumarba aad buu u mahadsan yahay. marka xiga waxaan u mahad celinayaa martida sharafta leh shacabka waqtigoodii qaaliga ah halkaa noogu yimi roobka iyo waqtiga oo aad u xun halkaa noo soo maray aad buu u mahadsan yahay. waxaan u mahad celinayaa salaadiinta odayada dabadoonnada guddiga dhalinyarada ururka cusub ee BDF. waxaan u mahad celinayaa oo aan aad ugu mahad celinayaa Suldaan Bashiir oo aad arkayseen runtii waxyaabo halkay nooga tirinaya haddana qaybtiisii ka qaadan doona. intaa kadib jaaliyadda Puntland ee Norway reer ma leh koox ma laha waa wax inaga wada dhaxayo wey. runtiina waad garanaysaan oo midnimada Puntland aad baan ugu dadaalay annagu waa cuslaanay dhalinyarada yaryar oo runtii wada akadeemiga inay hawshii qabtaan waa wax muhiim ah. inagoo garabkeena dhammaanaynu garab kaga taaganahay baan rabnaa inay noo shaqeeyaan hawl baynu u dirsanay hawshaynu u dirsanay inay noo qabtaan baan rabnaa. baraatokoolka inagoo raacayna dowliga ah idinku mahadsan qoladii inoo waxeeyey waxay la jooga agaasimihii guud ee daryeelka ee wasaaradda Puntland baa la jooga sidaa daraaddeed waa mas-uulka ugu sareeya caawa Norway jooga wax walbana baraatokool bay leedahay iyo sharci sidaa daraaddeed suldaanka agaasimaha guud baa wiilasha inoo calama saaraya oo uu dhalay dayib guure ataqaaniin allah naxariisto
oo aad iyo aad weli arwaa saaxiib ahayd runtii asagaa kusoo wareejinaynaa asagaa cayba saaraya agaasimaha guud master maxamed kusoo dhow بسم الله الرحمن الرحيم شرف بيتها هنا عن اللي كلا صعب قال حفلة دانوين قيمة يقاياله اللي على مسار يود ليرة runtii aan wajiyadooda garanayo oo ah hogaamiyaashii maanta iyo biriba waxaan ka imay dalka Soomaaliya waxaan ka imay magaalada waddanka Puntland daladu sida odayaashu sheegeen aad bay ugu mahadsanyihiin sharafta igu sharfeen inaan calaamasaarka aan uga qayb weyn ka ahaado waxaan agaasinka hay'adda daryeelka bulshada Puntland hay'adda wakiilka ah danyarta iyo daryeelka bulshada Puntland hay'adda ay hoos yimaadaan dadka danyarta ah oo u dhow nool bulshada hay'adda loo igmaday inay qaabasho naafada agoomaha iyo istiraatiijiyada dareenka hay'addeedii ka baahan taakulo hay'addeedii ka baahan garab istaag reer Oslo iyo reer Norway waa noo xisaabsantihiin mar labaad fursad bay tahay fursad koowaad waan uga soo qaybgalay xafladan oo ragga wajiyadooda garanayo oo soo shaqeeyay heerna halkaas ay qoslay dir la yiraahdo iyo rag aan soo wada shaqeynay federaalka xilligii federaalka عمر أمباستر عمر ورنتي سوى هذا فكتم وحاب مرقرح وحكون قضي أنا وقاسمي ورا رمى بناتنا الصومالي أنا حريها بدبادي هجني كده سبعان هاي قضي سو شقي فدرال كنا كشقي بنتلانا كشقيني يمان هاي سيدا مدعوين نوقرتين وبدلان ونقضه وأنا نبدلان ونقض هذا الكدير مايو فرحتها ay ka tira badatay wajiyo badan baan halka garanayaa nin dirir leeyahay dirir oo activist ah oo soo wada shaqeynay hay'adda Peace Action Somali Peace Action وصلنا soo wada shaqeynay garaadka Cabbaas ninka la yiraahdo baashi oo sportska ahaa kulli waa dhalinyarada jiilkayga waa calendar age-kayga marka dhalinyaradu waa xooga dalka waa xooga shacabka waa xooga inaynu garab istaagno sida la yiri membershipka inaynu qayb ka noqono oo aynu diiwaan gelino oo waliba idinka kaliya waxay idin tarmeeyaan annagana waxbay noo tarayaan waa isku xirkeeni waa bridge-kii inaga iyo idinka waa daaqadii ka wada hadlaynay waa channel-keen isku mareynay waxaan rajaynayaa inay iyaguna kaalintooda qaataan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ba aniga waxay tahay si gaar ah saaxiibaday oo aan uga soo qayb galay ilaa iyo dalka maartay Sweden baan hadda toos uga imi marka waan soo gaabinayaa waxaan idinku salaamay salaanta islaamka mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Mr. Cabdirasaaq agaasimaha guud ee hay'adda daryeelka Puntland aad buu mahadsan yahay marka waxaan jeclaan lahaa waxaan u dhiibayaa ciiro wuxuu hayaa bilad ay leedahay jaaliyadda Puntland waa afhayeenkeennii hore jaaliyadii hore waxaan rabnaa inaan jaaliyad ay dhalinyaradu ka gudoomaan hadiyadda biladda ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورئيس وحن سلام يا أقسمها واحد دريالك برشاد بلدان عبدالرزاق محمد ضيب بورة والعلك ساعدا صاحب هنا نو كرسي قونية الله نحرسته سيدوك لو وحن سلام يا لبضا قد كلها فرنتا جالية BDF يقولها مرجعة سيدوك لو وحن سلام يا برشوين تريد بلدان يا مرتدى ميشان شوفتي قلبتين تبا وحن أنيقا ربعينا نوريجيو بلداس aad arkaysaan BDF jarmalka aniga siisay macnaha ma ahayn ciireen la siiyay jaaliyada Puntland Norway baan ahayd waajib ay ugu tahay maanta marka maadaama inta wareejinay inaan guriga dhigto meel suurta maaha nimankii la wareega shaqada iyo jaaliyada cusbeed inay biladan la wareegaan oo iyagu ay biri ka maalina qof walba wuxuu haya saasa looga baahan yahay inuu wareejiyo hadii ilaa markay gaadho marka in madlamka idinkuna aad siisaan insha Allah ta'ala aan una duceyno xilka adag ee dhabarka loo saaray maanta odayaashii iyo waxgaradkii iyo gabdhohii iyo marwooyinkii iyo ayeeyooyinkii halka ay wada joogtaan waxaan qabaa inay xafladan ku dhihiin 100% ummadii reer Puntland oo soo deganeed cid maqan waa yada marka waa mahadsantihiin waxaan u maleynayaa gudoomiye ku-xigeenka ay soo fiirinayaan ku wareejinaya gudoomiye agaasimaha wareejinaya waxa kaloo halka jooga waad ogtihiin
odayaal badan baa jooga kuwa kuraasta fadhiya wakiilkii boqorkeena jooga maxamed cali boor marka ixtiraamkiisu leeyahay inagoo nabada halka isugu nimaadno ilaahay baa mahadda iyo sharaftaas gale waxaa halka galabta aanu isugu nimi calaa masaarka jaaliyadana cusub ee BDF oo guddoomiyaha u yahay injineer cabdifataax cabaas luga dheere iyo ku-xigeenkiisa mustafa jaamac iyo xubnaha kale ee jaaliyadda oo iyagana la magacaabay oo hadda aynu u jeedno dhammaantood inay yihiin kuwa ina hogaaminaya oo aynu doorannay inay noqdaaneen kuwa ilaahay hawsha aynu u doorannay ilaahay la garab garo ayna ka soo baxaan waajibaadkooda innagana kuwa ugu heliya milamka inaan siino oo ay milamka aanu siino waa kunta karo wax qiimaa male siduu u sheegay guddoomiyaha marjaca maxamuud qaalib inaan jaaliyadda aynu siino milamka markaynu 300 400 qof oo milanka ah oo kunta karoonka aynu siino jaaliyaddu waxbay qabanaysaa innagana waxbay inoo qabanaysaa dalkiina waxbay u qabanaysaa marka walaalayaal waxaan ka codsanayaa inaan jaaliyadda milanka siino ilaahayna waxaan uga baryayaa jaaliyadda tii aynu ku guulaysano dalkeennina wax anfacda innagana ina anfacda inuu ilaahay ka dhigo asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh xafladii waa loo walqalay mar haddii walqalay ducadiina waa raaciyey waxaana goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxa daryeelka master maxamed cabdisaaq dayib oo hadda puntland wakiilka ugu weyn oo caawa ila jooga iskandinaamkan oo ka yimid ayaa markhaati ka ah dowladdana waxaan jecel lahay dalkii weyn oo ka badan inuu laga gaarsiiyo inay tahay jaaladii sharciga ahayd oo la doortay oo rasmiga ahayd oo ka diwaan gashay waddanka Norway anigu 22 sano jooga meel ka qurux badan oo jaariyada ima soo marin runtii farxad guddigiina waa la ballaariyey puntland midnimo u baahan tahay hal cod ba u baahan tahay wadajir ba u baahan tahay saas wax lagu qaban karaa saas daraadeed jaaliyadii rasmiga ahayd waa taa halka caawataal wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan ku xijinayaa xasan oos oo ah odayaasha jaaliyadda isaguna inuu kelmadiisa halkaa ka yahay odayaashu waxay ku celcelinayeen madlamka hala bixiyo mashaki baa idinkaga jira madlamka in la bixinayo intaan oo isku timid iyo in kaloo maqanba madlamku waa diyaar nin reer koofura waxaa la yidhi reerkii baa inta martidii kaga soo hormartayba islaantu xoogaa reerkii soo fiidkiibuu yimi oo wuxuu yidhi xoogaagaygay soo sii sheekhow reerkii marti baa timid bay tiri caawi marti koydayaa iyo ma koyin maa bal 12kayga galaan jafadaasee wiil waxaad yeelaysaan marka ururkaani waa soconaya uma baahna aniga shakiigagama jiro madlamkaa bixinaynaa wixii kaloo loo baahan yahay baan diyaar la nahay madax meel ka sarraysoo la saraaxa lama arko cabdiraxmaan sayare puntland odayaashu ugu waaweyn weeye waana guddoomiyaha odayaashu nuu yahay wuu sheegay shakiyuu idinka gelin dhallinyaroy horay u socda anigu waxaan qabaa inaad nasiib badan tihiin waayihii hore ururadu waa iska dhib badnaayeen laakiin hadda kuwa ugu fursadda fiicnaa baad idinku tihiinoo xoogaa xamaasad iyo xilkasnimo badan baad naga helaysaane dadaala guul baana idiin rajaynayaa aad baa umahadsantihi muwaafaqadu marka wax weyn bay leedahay intaanu isugu timid anigu meel tuulaamaa degan oo marwood baan idin arsiyada u imid moogta marka sida awgeed waxaan rajaynayaa inay guul tahay insha allah guul bayna noqonaysaa maalintii ku soo hagaagtay puntland isku tashataa la yidhi waa isku tashigaas agaasima waa inoola hadlay haddii wuxuu inoola hadlay caweel u baahan yahay markii shaqaalaha dowladda la ahaa aniga sayaray waa garanaynaaye lacag baa loo jiri jiray dadka qaxootiga iyo ogaadaya u jiri jiray markaa lacag iyo shaaki waxbaa laga jiri jiray war haddaynu ku caawinno dadkeenna naafada ah oo puntland ku caawinno intayn halkaa joogtaa min 100 karoon iyaga wax weyn ba u taraysaa waa inaad adigu iska bilowd horta in adigu is aqoonsatid haddii aad ku talagashid in aad adigu dadnimo yeelatid ninna uma baahnida meel bood maraysaa haddii la yiraahdo sideedana waxaad ogaataan 3 daqiiqo aan ku qoranahay bahasha khudbada
wax walba waxay leeyihiin aasaasku waxaa weeye afartaa qodob haddii lagaa helo waad guulaysanaysaa koo waxaa la weydiinayaa waxaan aad qabanaysid horta ma aaminsan tahay inay soconayaan nacam ururkan inuu soconaya waan aaminsanahay waana ku talagalay labo daacad mawta haddaan daacad u ahayn ee aad caawina timaada hameen dambana goysid arrintii meesha ka baxday saddex waxaa kuu saddexeeya inaad ilaahay u tala saaratid afar inaad ku dhaqaaqdo horta runtii sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta imaado muddo 28 sano ayaa dalkan joogaa waana markii ugu horreysay oo aan imaado organization shir uu ku leeyahay halka kan waxaana sababay kalsoonida ayaa iska yaray laakiin maanta marka arkay dhalinyarada yararka ay la doortay rag ka mid ah aqoonsiiba gudoomiyaha waxaan ku qancay inuu yahay nin xilkan ka soo bixi kara inaan ku ciido marka hore uma rabin laakiin hadeer waan soo qadimay dabcan waana la shaqeynaynaa waxaan idinku soo gabagabeynayaa insha Allah gabay ahaa mid kalluunka aragtaan asoo qaata marka mid saaxiibkay tiriyey mid saaxiibkay tiriyey asoo qaata marka kalluunka tiriyey nin saaxiib aan nahay baa gabarku shukaansaday marka way diitay iyana waxay ahayd geeli maxaa reer miyi ahayd marka waxay tiri warriba Allah reer badeeda moogtahay Soomaalida wax isma oga sida loo yahay marka baddi uu faansanayaa marka wuxuu yiri gabar yahay macnaha guurku waa ka madow yahay inaan maqashid mooyee adiga kuma soo marinay macnayaal adoo igu yaqaan mahada ii kaale badda maaxigeeda baa nimcadu maash isaga taale maraakiibta aad maqashay baa lagu malaayayo malaayiin kun baa laga helaa maalin gelinkeeda macnahaas adoo igu yaqaan mahada ii kaale hadan shabaqa maamuuska leh iyo maaskaraha qaato magaalada aroortii haddaan mawjad kala shaalo marayaan dhexe haddii aan tago oo dhowr mitro quuso waxaan soo muglayaba haddaan midh ka soo siiyo miisaanka goortaan tago oo magaca aan sheegto milyuun iyo haddaan kaasadii mariyo macaluul ilaah iga ray milayga jilaale macnahaas adoo igu yaqaan mahada ii kaale mindida iyo lacaaftii haddaan maqadadii qaato mug haddaan dabo oo ilaad meel iskala taago waxaan soo marqaadaba hadduu midigta ii tirsho haddii aan ku soo mudo qari madaxu weynaaday goortu macaansama haddii madaxda loo keeno ruuxii magaafshaaba waa mahadnaqayaa macnahaas adoo igu yaqaan mahada ii kaale marka aduu dheeraa gabaygaas waa reer badeed marka aad baan idinku mahad celinayaa geeli baa ku baaba'ay laakiin gabaygii geela ee uu afturturi yidhi iyo midaan anigu yidhi labadaba way idiin sheegaya abaar gubatay cirka oo gudnaan jiray hadduu gelin dhaxaad horay garaac iyo gorduulaan haddii gabadh ku soo duulay dadku geedi waa jecel yahay ee gama hadduu diido gaadiid ninkii aan lahayn buuraha dil iyo garuu doqona geed 10 jiro gabni lagu leeyay garaynaagu sohdiya haddii geeda lala doonto goonyaha haddii lagala maro gaari tacabkeeda gurgurka iyo heeryada haddii gibilku dheeraado gaaliskii markay tahay hadday naaga bala qaato geedan hareemooda xilka haydka iyo maayada iyo gaxarku doogoobay oo gaardilaac tahay ridmadu giba hadda yeedho kelmaddaasi waa kelmad axmaara giba waa kelmad axmaariyo waa deg weeye oy gaardilaac tahay ridmadu giba hadday yeedho gogol duuga saangeesa iyo geed ku dadabtaaye isagood gambale moodi yaad hoos galgalataaye gorob dheeg ah oo xalay gorsiyo gama ka soo keentay oo gobolka mooye ku jiri giir wax laga keenay inta golaha joogoo dhan yaa laysku gacshaayay sidii gaadhi kaam lagu furay iyo gulufdan deeqdaayo warwaaginiga soomaalida geel ha la ogaado